السلام عليكم كسر وهذا يوتيوب كنا عبد الغنشدو فضلا هذا كسر سبسكرايب إنه صار لايكنا إنه قولي رجلي إن شاء الله بيجينا نصوب باغو مش أنا دوشي دوشة كذا قد عايزها وهاي تاي انتوجا يا وح وقاطي جبارير محمدي مركا انتي تلفك كواليسي وحاسوك عينير ومساكينة وتوصدا هاي إسلام مركا نقش قبك وحكا قادين جري وحونا وشيء حاجتي إن لقاطي عن جدير كهاي balse waxay u qaydisay oo tiranaga isdhaafsay hadalkiisa oo dhan waxna umaysan arag hadalkiisa ninkii waa uu soo qaatay gabadhii wuxuuna ku ritay gaari yar asagoo oo ku sheegay in uu dilayo uusan badbaadeenin kadibna waxa uu ku xirtay gaarigii kuna loo gareeyay ninkii masaakiinka ay waa weli daba jooga ayaa isku aadinaya gaariga wuxuuna sugayaa inta uu ka dheeraanayo gaarigan oo kaliya fursadna uu helayo inuu la kulmo gabadha sirta waxa uu soo tagay hadda si uu u badbaasho gabadha sirta ee gaariga ku xaniban wuxuu ka codsanayaa in ay gaariga looga ka furto balse waa carruur oo wax ma taqaan gacanta ay taagaysa oo ay qoslaysaa weli wuxuu u jeeday asagii oo sii socda wuxuuna ku sameeyay dabagal balse ninkan wuxuu uga cayaa koox kale oo wuxuu u sheegayaa inuu hayo balse kooxda kale waxa ay qasab uga dhigayaan in uu dilo ninka gabadhan ilaa hadda asagu ma fahansana sababta loo leeyahay dil balse waxay qasab uga dhigeen inuu soo dilo gabadha yarta oo nolosha soo dhaafiyo kadibna uu kala soo baxo xubnaha muhiimka ah ninkani weli wuxuu ku hayaa isha ninkani si waxa uu sameeyo asagoo isku aadinaya baabuurta si uu u ogaado inkan aakhirka waxa uu sameeyo bas ninkani amarka uu qaatay oo wuxuu la soo baxay midi si uu uga soo jaro nafta gabadha yarta oo uu soo tagay balse ninkani waa nin aad u aqli badan maskaxda ayuu riixay wuxuuna sameeyay inuu tukaan u doonto cabitaan oo uu ku badbaadsho sababtoo ah wax kale uu ku badbaadi karo aqoon waayay hadda orod wuxuu ku galay tukaan wuxuu la soo baxay cabitaan kadibna beesadii ayuu xataa kadibna jeebka ayuu beesihiisa ka dhiibay xataa asagoo oo faqiir ah si uu u badbaadsho gabadha sirta wuxuu iska dhigayaa xarraya oo masaakiin ah kadibna cabitaankii ayuu ku daadinayaa oo kala hor imaanaya wuxuu uga dhigayaa inuu soo ogeyn xilliga uu ku daadshay oo uu naxaaqay naga tag ayuu ku yiri waxaan waqtiga waa maxay cabitaanka xilligan uu daadinayaa كان اسمه أوجا بس كارتو وكوتا نينكاني عبتان كيسكا توري وحنا كوسو لابتي قبل يرتيه سو ولي وشيغو إن أي جاريغا فرتو وشيغا يا إن إلو غاني فرتو بس قبل يرتاه مو أوجا أو إسكا عياري ساولي هيادو مو أوجا نولشي ذا إني ولي وقع الصنية إن أفرو غدا إنكي وحو إسكا سو ميري عبتانكي ووحو آذي ميلواشا بيالي ninkanna weli codsi ayuu gudbinayaa balse gabadha yarteed alla ayaa ku duway oo waxay rabtay inay furto meeshii ninkiina waa uu soo xirtay umraayad ayuu isku soo eegayaa asagoo iska soo qalajinaya biyaha gabadha yarteed ayaa daaqada riixday oo loogiba uu furmo markiiba oo uu soo qabtay markii uu la baxay wuxuuba la kulmay ninkii oo isla markaas gaariga la joogay wuxuuna sameeyay isla markii inuu eriyada ninkii oo gaariga gabadha kala sii baxay riskeed ولا عاري بس كم هرن أسقو ورجع وحي كتير تجاوبنا يرتا إنه صار ربطه كدبنا ونلاش نافيو شقاديسي أيامان طلقت متنين كاسي ونين كان أيا أصاب حياة جودي سكلا عرّي ولي بس إماها إنه ملك الجارة يصابته قف حمبار سنة قف ملك الجارة كرو ولي وعرّي بس وحوا يبننكي إرياني wuxuu sameeyay kaarta inuu qortay oo hore u ka soo dhigo maadaama ninkan uu eriisho ku qaba waayay aadna u orod batay wuxuu mar qura kala kulmay hortiisa wuxuu yiri dhig gabadhan xageed u cararaysaa sababta u sidana noo sheeg gabadhan waa maxay gabadha sababta u fogaanaysaa oo u cararayso uu ka codsaday gabadhan inuu daayo balse weli uu ka celinaya gabadha yarteed gabadha way aragtay xaaladdu inay xun tahay waxayna isku aadinaysaa ninka dhabarkiisa كعصنايا إنه داية قبل يرتاعي بس وحي ودلنينكي وحي لدعي مدبه أمان إلا إن قدع عنينكا بس نينكا رياضة وحاهد إنه نرشا صغو بدباشا قبل يرتاعي بديك الصغو قدع ذاك مؤسيري وحي كل جنيا لقطة إلا وكوبس قبل إنه يزد تجيده
hooyadu weli wax ma oga, waa mid ku hadlaysa taleefanka waxna aan ogeyn. ninkiina wuxuu ka cararay goobtii. ilaa hadda waxay moodaa inay u joogto gabadheeda ilaa markii waxay ku hadlaysaa taleefan maalaayacniya, balse nin dhan ayaa naftiisa ku wadshay ku badbaadiyey nolosheeda. gacanta ayuu u taagayaa isagoo ay weliba dhaawac daran ee aad ugu yaallo. ayaduna gacanta ayay u taagtay in lamaba taqaanba caawiya ninkani waa ninkii intaasu dhiba ku maray. bartii ayuu ku dhacay oo uu ku dhiig baxay uuna ku suuxay. balse waxaa soo maraya dadku waddada way iskaaga marayaan, waayo waxay u arkaan qof duruufaysan oo gaajo la jiifa isla markaasna darbi jiifa. balse ninkani qalbigiisu nadiifka yahay ayaa badbaadinaya oo fiirinaya bal ninkan waxaa ku dhacay, balse wuxuu ogaaday inuu dhaawac yahay. isla markaasna wuxuu wacay si loo badbaadiyo ninkani. fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalkeena subscribe